waxaan kugula wadaagi doonaa muuqaalkeennan maanta 4 qodob oo aad kaga bixi doontid dhaqaale yarida. Number 1. Wax akhri. Waxaa jira buugaag badan oo laga qoray sida qofku dhaqaale u samayn karo ama qaabka lacagtu ay u shaqayso. Haddaba waxaad badisaa inaad wax akhrido oo akhriskaagu badnaado, gaar ahaan kuwa ka hadlaya dhaqaalaha iyo hal-abuurka, si aad u ogaato fursadaha agtaada yaalla ee aad dhaqaale ka samayn karto. Waxaa kale oo kobci doontaa aragtidaada dhinaca dhaqaale samaynta iyo hal-abuurkaaga. Number 2. Habfikirkaaga wanaaji. Habfikirka wanaagsani wuxuu qayb weyn ka qaataa dhaqaale samaynta iyo inaad gaadho xornimo dhaqaale oo aad u madax bannaan tahay. Waxaana lagu tusaaleeyaa haddii qof aan aqoon u lahayn qaabka ay lacagtu u shaqayso loo dhiibo $10,000 islamarkaana lagu yidhaahdo ganacsi ku samee, lacagtaasi waxa ay kaga baaba'aysaa muddo kooban, maadaama aanu aqoon u lahayn qaabka ay lacagtu u shaqayso, ama aanu isagu aqoon u lahayn qaabkii uu lacagta uga shaqaysiin lahaa. Marka waa muhiim inaad barato qaabka ay lacagtu u shaqayso. Taana waxa aad ku gaadhi kartaa inaad wax badan akhrido islamarkaana aad xog badan raadiso. Number 3. Shaqee. Waa inaad tahay qof shaqeeya si aad u hesho dhaqaalihii aad ku samayn lahayd inaad gaadho xornimo dhaqaale, ama aad ku abuuri lahayd ganacsi adiga kuu gaara. Haddaba adiga oo shaqaale ah waxaad mar walba niyadda ku haysaa inaanad weligaa shaqaale sii ahaanin oo aad adigu samaysato ganacsi iyo dhaqaale kuu gaara. Laakiin inta hore waa inaad aad u shaqaysaa, wakhti badanna aad ku bixisaa sidii aad dhaqaale u samayn lahayd, dhaqaalahaas oo ah kii aad wax ku bilaabi lahayd si aad u gaadho hadafkaaga. Number 4. Kaydsi lahow. Waa inaad tahay qof kaydsada dhaqaalaha soo gala wax ka mid ah. Waana qodob aad u muhiima qodobkani. Haddii aanad wax kaydsan, taasi waxay keenaysaa inaad weligaaba shaqaale sii ahaatid oo aanad noqonin qof iskii u madax bannaan. Haddii dhaqaalahaaga oo aad u yar haddana aad wax ka mid ah kaydsato, taasi waxay caddayn u tahay haddii dhaqaalahaagu batana inaad wax badan kaydsan karto. Laakiin haddii aanad kaydba lahayn, waxay ka dhigan tahay haddii dhaqaale badan ku soo galana inaanad waxba kaydsanin. Waayo dadkeennu waxay ku maahmaahaan waddada yar ayaa kugu rida waddada weyn. Waxaa kale oo ay ku maahmaahaan tiisaba daryeelaa tu kale ku dara. Waxayna caddayn iyo dhiirigelin u yihiin mar kastood waxa yar wax ka qabsato inaad waxa weynna wax ka qabsan karto. Haddaba dhaqaalahaaga oo yar haddana naftaada ku qasab inaad wax ka mida kaydsato. Channelka subscribe saar si aanay marnaba kuu dhaafin xogaha cajiibka ah ee aan ku soo gudbiyo barteenna Maamuusa Media.